بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها شرفت له كل أنت وناكسنا وعن ملك استاد دونك كجوكتان انت كدب ولا على الوحن دعاء الله سبحانه وتعالى وقبر ينا إنه عافمات سيتامة سلمر كان وناجي حالدي سعافمات شيخ محمد عبد المل وكم علماء الصوماليات أول شيء إن مالك بريتو الأولية قلتان intaa kadib walaalayaal waxaan rabnaa maanta inaan ka hadalno dhibaatada la soo wajahday Soomaaliya iyo dalka Soomaaliya. walaalayaal wadanka Soomaaliya xaalad khatar ayuu ku sugan yahay, isla markaana wuxuu halis u yahay in mataqaana uu qadka ka baxo. waxaad arkayseen in dhawaan isku tuurtuurayay baasaboorka Soomaaliya xafiis ma looga furayo Hargeysa mise loogama furayo. arrintaasna kadib markii uu shaaciyay ninka haysta qaybta socdaalka ama migration ka haysta Soomaaliya Gafo uu yiri Somaliland ayaa waraaqii soo dirtay, isla markaana waxa saxaafadda ku soo degdegay oo beeniyay wasiirka Waran Cadde wuxuu yiraahday arrintaas waxba kama jirto. runtii walaalayaal waxaa dareemaysaa nimankan siyaasiyiinta ah waa dad lagu shaqaysanayo, waxayna rabaan shacabka Soomaaliya dhexdooda inay ka abuuraan colaad joogto ah. waxaa kaloo la yaab leh qofka Soomaaliga ah hamigiisa wuxuu ahaa sida uu ku heli lahaa dhulka naga maqan ee naga haysto, laakiin maanta waxaa nasiib darro ah in annaga dhexdeena aan isku soo laabanay, isla markaana aan isku haysano wadankii cidda looga tagi lahaa. nimankaas siyaasiyiinta waxay rabaan inay colaad dadka ka dhex abuuraan, isla markaana nacayb ay ka abuuraan. waxaan aaminsanahay qofka Soomaaliga ah ama Somaliland jooga ama Puntland jooga ama Galmudug jooga ama Laanlaankan Jubbaland jooga meesha raba ha jooge maanta inaysan xasaasiyad ka qabin in baasaboor Kenyaati la qaato, in baasaboor Ethiopian la qaato ama in baasaboor qalaad la qaato. laakiin marka la yiraahdo baasaboor Soomaali ah waxaad maqlaysaa dad badan oo afka furanaya. waxaa kaloo xusud mudan ammaanna mudan siyaasi reer Somaliland oo qirtay inuu yahay inuu isticmaalo baasaboorka Soomaaliya, isla markaana qirtay inuu Hargeysa ka furnaan jiray baasaboorka Soomaaliga sida lagu qaato. walaalayaal haddii arrintan laga hortagin ama shacabka aysan ku baraarugsanin waxaa dhici doonta sida wadamo badan oo islaam ahaa ay gacanta uga baxaan. tusaale waxaa usoo qaadataan Al-Andalus oo ahaa wadan islaam hadda Spain la yiraahdo, gacanta muslimiinta ayuu ku jiray waana laga qaaday. sababta looga qaadayna waxay isku mid yihiin xaaladda Soomaaliya. waxaa noola suubiyey magacyo iyo maamulo ayaa noola suubiyey, isla markaana waxaanu hilmaamnay ujeedadii wadankan laga lahaa. annaga ayaa isku mashquulnay, cadowgeenu nagu soo durqayaa, wadanka waa la haystaa, dadkeena waa la duqeynayaa. waa aragteen duqeynta ka socota gobolka Gedo, dadka masaakiinta lagu leynayo, mataqaana xasuuqa ka dhacay dhulka dhan waa ujeedaan. meelaha hadda nabdoon ee runtii mataqaana la leeyahay Soomaali ayaa ka talisa, Puntland iyo Somaliland oo kale haddii ay saas kusii socdaan marna waa loo imaanayaa, ayakana waa loo talinaya, waa lana duqeynaya. marka maxaa loo baahan yahay qofka Soomaaliga inuu ka fogaado, inuu meel fog wax ka arka ayaa loo baahan yahay. nimankan siyaasiyiintana waa inay ogaadaan inay ayaka jeebkooda u shaqaysanayaan. waxay rabaan inay burburiyaan dadkii ganacsiga lahaa, ganacsiga suubisanaya wada shaqaysanayay. maxaa ka jaban maanta ama ay dhib leedahay qofka Soomaaliga ah? Soomaalinimada dadka dhan bay ka wada dhexaysaa. inuu baasaboor Soomaali qaato haddii waa wax uu taraayo ama caafimaad ku aadayo ama meel kale ku aadayo ama ku ganacsanayo. waxaan aaminsanahay aniga wadankii waxaan ku tagay booqasho ayaan ku tagay, runtii waxaa naxdin leh inaa gaalkacyo ilaa Garowe ilaa Hargeysa aad ku aragtid gawaari Ethiopian taarikadooda ku dhegan tahay, sidooda ugu dhegan tahay. laakiin marka aad Laascaanood timaadid taarikada waa la furayaa, taarikada Puntland waa la furayaa, tii Somaliland ayaa lagu xirayaa. marka uu xagga usoo socdana tii Somaliland waa la furayaa, tii Puntland ayaa lagu xirayaa. dadkii cabsi ayaa la kala dhexgeliyey. marka waxaanu leenahay shacabka Soomaaliyeed waa inay arrinta noocaas ka dhigdiyaan. waxaa kaloo kusoo hartay hadda waxa la isku mashquulsan yahay 4.5 miyaan qaadanaa mise qof iyo codba wax lagu doortaa. sidaad ogtihiin arrimahan 4.5 iyo waxyaalahan kale dad ajnabi ayaa wata, isla markaana waxay rabaan inay xukunka ku keenaan qofka ay rabaan. laakiin qofka Soomaaliga waa laga hortaagan yahay inuu wax asaga doorto, codkiisa wax ku doorto. haddaba waxaanu leenahay shacabka Soomaaliyeed ha ka digtoonaadaan mataqaana majara habaabka lagu hayo, isla markaana ha ogaadaan nimankan siyaasiyiinta ah dantooda ayay wataan. weli ma maqashay nin siyaasi ah ama nin xukun haysta oo mataqaana nin qabiilkiisa isbitaal geeyey ama iskool ka bixiyey ama caafimaad siiyey? ma jiro. maalinkay xukunka rabaan ama kursiga rabaan ayay reebel u yimaadaan, markay helaanna maba yaqaanaanba. waxaa ilaahay subxaana watacaala weydiisanaynaa inuu dembigeena dhaafo, dembiga waalidkeena dhaafo. isla markaa waxaa mar labaad idinka codsanayaa in aad ummadda muslimiinta ee xanuunsan dhammaan usoo duceysaan, gaar ahaan aad u duceysaan sheekh maxamed cabdi umal. ilaahay subxaana watacaala qallitaanka u sahlo. walaalkii naasir cadceed oo idin leh aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.